حرقيس المحوسي عدينا هدو سي خدنا وشرع درada dalka taal haday waxa ka dhalan kara waa dastuur jabin taana dastuur jabina waxa ka dhalanaya way cadahay in beeshman ba ka dhalanaya waxa tay mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland deegaan ahaan laga soo doortay gobolka Awdal baa laga soo doortay dadka deegaankaaga ku sugaya marka arimahan xildhibaan Maxamed Abiib in wax laga weydiiyo ayaan ku qasbanaan inaan si kadisa kugula hadlo dadku kaartadii Muuse la fahmay kaarta xarshineed baa leedahay aqli xumadu waa tii fircoon lagu cadaabay caadiye samuudiyo kuwii nuux ku caasiyay cawda loogu gooyay daawadayaal hadda waxa halkaas si kadis ugu arkay gudoomiye Ali Xamed Jibriil gudoomiye arinta Maxamed Abiib iyo xarigiisa maxaa kaaga baxay waa sharci daro waa khalad goluhuna go'aan buu ka gaaray go'aankuna uu cadayn sharci daro lagu haysto xasaaradana koobi ka xildhibaan baa diiday saddex baa ogolaaday labana way ka aamuseen gudoomiyuhuna ma coday xarigiisa muxuu sii cadeynaya haduu sii xidhnaado waa sharci darada dalka taal haday waxa ka dhalan kara waa dastuur jabin taana dastuur jabina waxa ka dhalanaya way cadahay in beeshman ba ka dhalanaya okay nagaraan noqosi kadisan xagan kuugu qabtay bal arinta kiiska xildhibaan Maxamed Abiib xarigiisi maanta go'aan baad ka gaadhay sidee buu kula muuqdaa abtimaad iga deysay xil markii hore golaha maad igu xildhibaan waxa tay mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland deegaan ahaan laga soo doortay gobolka Awdal baa laga soo doortay dadka deegaankaaga ku sugaya marka arimahan xildhibaan Maxamed Abiib in wax laga weydiiyo ayaan ku qasbanaan inaan si kadisa kugula hadlo Maxamed Abiib xarigiisa sidee buu kula muuqdaa iyo maanta go'aankaad ka gaadhay wallahi horta xildhibaan Maxamed Abiib xadgiisa noo mid sharci darra waana dastuur jabin waa xildhibaankii labaad ee dastuurka la jabiyo inta madaxweyne Muuse Biixi joogay arintaana maanta goluhu si fiican buu uga jawaabay xataa waraaqdii xiriiraalintu soo qortay ee ay tiri maamuska xayuubinta goluhu maanta cod aqlabiyadu ku diiday koob iyo konton xildhibaan baa diiday marka arrinkii saas uu ku soo afjarmaya xildhibaankana in 24 saac soo socda xorriyadiisa loo soo celiyaan rajaynayna diilayna laakiin dadka kacdoonada Awdal bay ka bilaabayaan haduu Maxamed Abiib halka ku sii jiro dad kale maxaa adiga kaaga baxay horta kacdoonku hadduu kacdoon bilaabmayo kacdoonku talo badan buu u baahan yahay ree Awdalna waxay ka dheregsan yihiin maanta in Muuse ugu tala galay in kacdoon dhaco kacdoonkaasina ma dhacayo waayo dadku kaartadii Muuse la fahmay kaarta xarshineed baa leedahay kaarta xarshineed waa la fahmay waxa la doonayaa Muuse wuxuu doonayaa isagoo oo lagu soo dhaweynayo gobolka Awdal ayuu Maxamed Abiib xiray marka wuxuu doonayay in xabadu bilaabanto laakiin xabad bilaabmaysa ma jirto dadkuna talo u baahan yihiin annaga wax xildhibaan annagana soo doorteen markaan siiriga oo afufno bay qaadan doonaan oo marka siiriga maxaad ugu afuufaysan haday xaaladdu sidaan ka sii adkato xildhibaanka la sii deyn waayo siiri baa la afuufi doonaa siiri siirigaas muxuu sheegayaa de ama mudaharaad ama xabad mu noqon marka aqli taa dhaama maani jirin ma boqol aqli oo dhaama la hayaaye xukuumadii baa wax walba iska indhatirtay waayo wadanka nimankan haysta waa laba korneyl waa wasiirka arrimaha gudaha iyo Muuse Biixi waa laba korneyl labadubana taladoodu waa xabadun marka xukuumadda kulmiye waxba u muuqatay xaaladeedu gabaygii muxuu horta gabaygii armadii sheegtay gabaygii ahaa muxuu ahaa talaxumada fircoon bay ahayd gabay buu haye hees baa ahayd bas hees qarada qaadi jirtay maxay ahayd aqli xumadu waa tii fircoon lagu cadaabay caadiye samuudiyo kuwii nuux ku caasiyay cawda loogu gooyay marka labada korneyl waxay doonayaan in Soomaaliland cawda loo gooyo laakiin Soomaaliland cawda looma gooynayo Soomaaliland loo gooynaya marka Soomaaliland anaga dhisnay laakiin rag baa doonaya Soomaaliland cawda loo gooyn maayo iyagana waqti uu ka dhamaaday 7 sano la doortay marka wadanku doorasho diyaar u yahay xabad dhacasaana ma jirto balaayo kale ma jirto gobolka Awdal xaaladiisu way degan tahay saaxiib